لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، saxaabada ka mid ah ayaa yemen ka soo baxay. wuxuu u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam. yemen ayuu ka soo baxay nebiga oo jooga sacuudi madiina ayuu u yimid. muxuu rabaa inuu la jihaatamo, muxuu rabaa inuu diinta difaaco, muxuu rabaa inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu wax ka barto. markuu nebiga u yimid ayuu sheegay, nebi ilaahayow yemen ayaan ka imid, adiga ayaan kuu imid si aan kula jihaatamo, aan ku difaaco. kadib wuxuuna yiri waxaan ka soo tagay waalidiinteeda si adiga leh aan cilmiga kaa barto, aan kula dagaaltamo. kadib ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yiri, bax laabo yemen ku laabo, waalidiintaada ka faraxsii sida hadda aad u muujisay, ka faraxsii ayuu yiri. sababtoo ah cibaadadan ugu fadli badan. nin ayaa saxaabiga u yimid wuxuu ku yiri, waxaad ii sheegtaa cibaado midka ugu fadli badan. nebigu wuxuu yiri salaada oo waqtigeeda lagu dugto. kadib maxaa ku xiga ayuu yiri saxaabiga. nebiga wuxuu yiri waalidiintaada in aad ka farxiso, aad u baari samayso. hooyo waa midda ku soo korisay, hooyo waa midda caloosha kuugu siday 9 bilood, hooyo waa midka ku bartay hadalka, hooyo waa midka ku bartay socodka, dharka kuu gelisay, cuntada ku bartay, adigoo waxba aqoonin oo adduunkan waxba ka aqoonin ku bartay wax walba weeyaan hooyo. hooyo weeyaan wa tacaala wuxuu leeyahay anishkur lii waliwaalidayk, aniga ii mahad celi, kadibna waalidiintaada u mahad. nebiga wuxuu leeyahay ilaahay inuu kaa raali noqdo, ilaahay inuu kaa raali noqdo waxay ku jirtaa waalidiintaada inay raali ka noqdaan. walaalayaal, waa inaan waalidiinteena u baari samaynaa, waa inaan waalidiinteena khaasatan ramadaanka aan caawinaa, wax u dirnaa, wax qabanaa, aan cuntada karinteeda aan ku caawinaa, lacag aan u dirnaa, wax walba inaan caawinaa. camal midka ilaahay loogu jecel yahay ayay ka mid tahay. aan ku dadaalna walaalkaygiyow, ku dadaal waalidiintaada inaad ka farxiso, aad ka qosliso, ayna kuu duceeyaan. 3 duco ayaa jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalo. waxaa ka mid ah waalidkaaga hadduu kuu duceeyo. ku dadaal walaalkaygiyow, ku dadaal, ka qosolsii mar walba. aan ku dadaalla arrintaas. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله.